magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jabinayaan 100 arday oo ka aflaxday jaamacadda Joobka ee kuwaas oo dhameeyay kulliyadaha beeraha, caafimaadka, IT-ga, xanaanada xoolaha, maamulka iyo ganacsiga. Ka maamulka gobolka Hiiraan baada waxbarashada ka socda wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle waalidiin ardayda qalin jabisay iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadda. maamulaha jaamacadda Joobka ee faraceeda magaalada Beledweyne Mustafa Cabdirashiid Cilmi ayaa ka warramaya marxaladaha ay soo mareen ardayda qalin jabisay iyo kulliyadaha ka baxeen. ardayda qalin bedelatay way isku jiraan arday kulliyadda caafimaadka ah oo qaybaheeda kala duwan sida general nursing public health iyo medical laboratory. waxaa kale isku jiraan arday BA ah iyo arday IT ah iyo arday agrofit ama agriculture iyo veterinary iyo arday IT ah. ardaydan waxay daraasada soo bilaabeen 3 sano ka hor. marxaladda ay ku bilaabeen nin kasta meeshuu ku bilaabay isaga, laakiin marxaladda ay ku bilaabeen marxalad aad u adag, biyo baxooyin jiraan, dagaalo jiraan, qaraxyo jiraan, aan markhaati ka ahaynay ayadoo biyo baxa hadda laga imaaday shalay camal ayadoo biyo baxa laga soo galay in maanta camal aan dhaana examkii la galay dhammaantood soo wada ajiibeen ay imaadeen. dadaalka ay soo muujiyeen iyo dhabar adeega ay soo muujiyeen iyo dulqaadka ay soo sameeyeen waan u mahad celinaynaa. waxaana leenahay hambalyo maanta marxaladdan aad soo gaarteen waxay ahayd marxalad aad wada sugayseen. marxaladdan aad soo gaarteen waa marxalad waxay ahayd waalidkiin oo idila sugayay. annagana dadaal aan mataqaanaa maxay ahayd adika aan idinka aragnay iyo mataqaanaa maxay ahayd wanaag aan adika idinka aragnay aan halkan waxaan rabnaa in markhaati aan u gelino shacab weynaha ka soo qayb galay xafladdan oo aan u sheegno inaad aheedeen dadkii ugu mudnaay ee maanta la dhaho waxay u qalmaan shahaado. waxaa tihiin dadka ugu mudnaay shahaado u qalmo. waxaa tihiin dadka ugu wanaagsanaa ixtiraamka markii la dhaho, dadka ugu wanaagsanaa akhlaaqda markii la dhaho. waxaan idinku soo aragnay amarkeenna inaad si fiican u ajiibteen. waxaan idinku soo aragnay marxaladihii daraasiga ahaa ee aadka u adkaa ee annagana aan markhaatiga ka haynay ee magaaladan biibaxada sanadkiiba 2 jeer kusoo noqonayso inaad dulqaad soo muujiseen. isku dhawaad wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle gobolka Hiiraan Xasan Axmed Barqadle, gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle iyo wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda Hirshabeelle Mahad Maxamed Xasan ayaa si wada jira hambalyo ugu diray ardayda qalin jabisay iyagoo hadallo dardaaran u jeediyay. haddii aan garbaas qabsanana wax naga halaabayna ma lahan. waxaan aniga isleeyahay caafimaadka xaggiisa jirtaa caafimaadka wax badan isku bedeli doona insha Allah. keligayna wax ma qaban karo, adiga shaqada idinka bilaabanaysaa kadib ay u gudbaysaa heerar kala duwan. adiga donors hay'adaha donors ma hay'adaha waxay wax ku soo qaadanayaan adiga waay sida adinka jeceshiin oo ugu qiimaha badan inay ugu shaqeeya waajib u leedihiin. waa maasantiin sharaf leedihiin. mar labaad iyo mar saddex waa idin leeyahay hambalyo miraha soo beerateen inaad gura doontiin waa rajaynaa. waxaan mar kasta dhiirigelinaynaa dadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ku nool ee gobolkan Hiiraan inay shaqeeyaan. waana ku celcelinaynaa wax kasta oo ku saabsan ama shaqooyin ama la soo dejiyo ama ay wasaaradaha quseeyo ee wasaaradda caafimaadka hadda halkaan nagala joogto isku duwaha iyo wasaaradaha kale ee halkaan ka howlgala ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay'adaha samfalkaba aan ku dhiirigelinaynaa inay qaataan ardayda wax baratay maadaama ardadan duruufo adag ay wax ku barteen. waa aragteen gobolkan Hiiraan fatahaadaha 3 bilood biyo la'aan 3 bilood oo kalena in laga barakaca biyo. bulsho ama deegaan markii uu horumarsan yahay ama uu dhisan yahay ama uu macno leeyahay uu muuqdo waxa sidaa u yeelay waa dadka iskale ee degan ee ku nool. haddii uu baaba'san yahayna cagsigeeda waxaa sabab inta badan noqon kara dadka ku nool oo aan aad u fikirin doorkii iyo kaalintii ay lahaayeen aan qaadan. waxaan u baahannahay gobolkan gaar ahaan magaaladan Beledweyne oo gobolka madaxda ah duruufo adag oo aad u fara badan ay wajahaysaa, kuwa rabaaniya iyo kuwa inagu inta badan sababteeda aan yeelan karno. waxaan u baahannahay in haddii la jiifay hurdada laga kaco qof kasta kaligiis haddii uu ordaayay inuu ka soo laabto kaliya orodka uu bulshada doorkiisa ku beeriyo oo gacmo wada jir ay wax ku qabtaan sidii gobolkan duruufaha iyo dhibaatada ku jirta looga saari lahaa
aynu dhammaanteen gacmaha iska qabsanno wixii ka hadlaysana dhammaanteen naga hadlaysiin hal qof kama hadlaysna wixii uu samaysana dhammaanteen inoo samaysiin hal qof uma samaysna dufcaddan maanta ka qalin jabisay jaamacadda joobka ee magaalada beledweyne ayaa noqonaysa dufcaddii 7aad ee ka qalin jabisay jaamacadda tan iyo markii la furay sanadkii 2014 maxamed cabdisanay radio beerlula beledweyne